وكسلام صاحب ما نتا دلتي إلا ما أنت واضح ليسا أفكار واسكو قبنيسا وكلا قاديسا وقلوعنيسا ساسو إتهاني شيب كيسي سنبدلو أو ما أركيسي تقف هذا الدرتيس أفكو ويناري أما آموسنان درتيت أفكو ويراري waxyaabo waxaa jira si walbo loo dhaqdhaqaajiya ama dadaal badan loo sameeyo aan isbedelinin waxaana ka mid ah qof haddii aamin darrada ay ka lunto badanaa waxaa laga yaabaa qof inaad aamin darrada ka lumisay qof markaa wax idin ka dhexeeyo aa isku dhaxdaan ama saaxiibtinimo idin ka dhexeyso ama xiriir idin ka dhexeeyo aamin darradu markay lunto ama qofkan waxaa laga yaabaa in qof kale aamin darradii uu ka soo lumiyey haddii aad marka adiga ku dadaasho qofkaani aaminaada laga soo lumiyey ama aad ka lumisay inaad aaminaada u dhistid way adkaanaysaa si walba aad dhaqaaq u samaysid waa sida afka oo kale si walba afkaaga u dhaqdhaqaajisid isma bedelay qaabkiisa aaminaadin waa tabtaas oo kale ilaa ayagu ay ku dadaalaan inay aaminaadooda soo dhisaan mooye sababtuna waa wax ayagu ay dareemayaan aaminaada adiga ma dhisi kartid adigu kaliya waxaa samayn kartaa wanaag inaad markaasi ku dadaashid wixii hore usoo dhacay aysan dib dambe usoo noqonin waayo noloshu maalin walbaba wuji cusub bay yeelanaysaa waxyaabahan dhacay way kala duwanaan karaan waxaa laga yaabaa shalay qalad inaad gashay qaladkaasi qalad u dhow ama ka duwan inaad gashid isla markii qofkii wuxuu aaminayaa ama niyadiisa kusoo dhacaysa inaad qof xun tahay waxaana laga yaabaa labada qalad inaysan isku mid ahayn bini-aadan baynu nahnay maalin walba qaldamaynaa marka haddii aad damacdo marka inaad qof aaminaadiisa dhistid way adkaanaysaa ilaa iyagu ay dhisaan mooye waayo wixii ay ka bilaabanaysaa aaminaadani shakhsiyadooda weeye shakhsiyadoodana adigu ma dhisi kartid qofka shakhsiyadiisa ma bedeli kartid ilaa iyagu ay bedelaan mooye ilaa iyagu ay ku dadaalaan waxaana soo dhacay inay ilaawaan kadibna ay ku dadaalaan inay waddo cusub u helaan mararka qaar hadday xanaaq dareemayaan oo kale mararka qaar hadday gocasho dareemayaan mararka qaar hadday wax soo xasuusanayaan waa inay iyagu dib iskugu laabtaan isdhahaan adiga waxaan ilow oo wax kugu soo dhacay qofkaana waxyaabo wanaagsan buu dib u sameynaya laakiin qofkana aamin darrada kugu sameeyey haddii uusan wanaag dambe kuu sameynaynin dee way ku caddahay waa inaad ka hartaa laakiin qofka haddii uu ku dadaalayo inuu wanaag sameeyo qalad kale uu ka dhaco aanan qaladka la mid ahayn haddii isla markii qofka farta ku fiiqayso oo dhehaysa weligaa isma bedelaysa taa micnaheedu waxay tahay adiga ayay shakhsiyadda kaa xun tahay aamin darro ma jirto marka haddii aad maanta qof xiriirida ka dhexeeyaan ama marwo ay kuu dhaxda ama xaas aad tihiin qalad uu soo dhacay mar walbaba ha ku dhegin aamin darradiidaad lumisay kuma aamini karo ee adiga waa inaad isasaxdaa adiguna mar walba niyadda ha gelino qofkan inaa aaminaadiisa dhisid ma dhisi kartid waxaana waa shakhsiyadduna qofka naftiisa ayaa dhisi kara si walba dadaal aad u samaysid si walba qofkaana kor ugu qaadid si walba aad wax cusub u samaysid si walba aad energy badan u lumisid waxaa dhacaysa hal qaladoo yiriisa aadan ugu talagelin haddii ay kaa dhacdo meeshaas xanaaqa ka bilaabanaya kadibna waxaa dhacaysa in adigu mar walbaba aad noqotid qof markaasi walwal iyo murugo la nool ama waxaa laga yaabaaba inaad qofkan saa u dhooraysid dantaada aad ku segtid qofkan haddii qalad kaa dhaco qalad wuu dhici karaa waa inaad u sheegtaa aaminaad darraa dareemaysaa soo maaha waxaan ku dadaalayaa qaladkan dhacay qalad la mid ah oo u eg inuusan mar dambe dhicin laakiin qaladaad kale way dhici karaan adiguna waxaad ku dadaashaa inaad wax ilaawi kartid oo wixii aan kugu sameeyey aad ilaawi kara haddaad ilaawi karinna adiguna has dhibin annaha dhibin qof laba qof oo bilaa-aadan oo dareen laha nahnay sababtana badanaa dadka dhalinyaradu waxyaabaha ay la murugoodaan ama ay la dhibaatoodaan waxaa ka mid ah qofaa aaminaad darrada laga soo luminayaa qofku markuu kugu yimaado oo kirado qalbigaaga lagu soo ciyaaray isla markii waxaa laga yaabaa inaad ku dadaashid inaad qalbigaasi dhistid haddaba ogow qalbigaas markaad dhisaysa qalbigaaga burburinaysaa waayo wanaagan tirada badan aad samaynaysid waxaa dhacaysa maraad ka daali doontid marka aad ka daashid oo aad iska istaagtid qofkaasi markaasuu garowso doono oo dib kugu soo noqon doona markuu dib kugu soo noqdo wanaagii adiga waxaa laga yaabaa inaad daashay energy dambe aadan heeninbo markaasna waxaa dhacaysa labada qof markaasi inay isfahmi waayaan waana sababta keenta in labada qof si walba marka hore wanaag u sameeyo ka dambana u dhahay wanaagga samey jirtee maxaa kaa qaldan maanta maxaa isku bedeshay adiga wanaagga lagu samey waayo ayaa gara waayay xaaladii markaa lagu jiray ee wanaagga lagu sameynayay inaad aqbali weydid mar haddii wanaag lagu sameeyo waa inaad isla markaa aqbashaa oo aad tirahdaa ow wanaag baa lay sameynayaa waa inaan ku farxaa waa inaan aqbalaa waa inaan niyadda geliyaa laakiin wixii kugu soo dhacay haddii mar walba ku hortaagan yihiin oo wanaag walba lagu sameynaya aad adigu dib isku dhigaysid shakhsiyaddaa kaa xumaatay qofkaani wanaagga kuu sameynaya waxba ha ku dhibaataynin aamin darro ku haysata iyo wax ku soo gaaray waxyaabo waxaa jira dhaqdhaqaaq iyo orod iyo hididiilo aan isku bedelin ee isku bedelaan keliya garowso aad garowsanaysid waxaana qaabka u soconayaan sidee u xalli karaa halkii wax ka qaldan yihiin ma qofkaa laga rabaa inuu wax bedelo maanaa laga rabaa inaa wax bedelo waa inaad dib iskugu laabataa laakiin isla markii haddaad inta go-aan qaadatay tiraadid anaa wax bedelaya adoona ogaanin meeshii wax ka qaldan yihiin waxaad noqonaysaa qof ordaya oo hal mashiin dul saaran mashiinkaasina aan dhaqaaqaynin maanta dhan halkaasaa waxaad ku luminaysaa energy waxaa laga yaabaa adiga inay kaaga lunto aaminaadii naxariistii fahankii iyo dulqaadkii
haddii intaa kaa lunto qofkaana aad kala boodaan oo kale hadhowti qofka dambe aad bari doontid waxaa ku adkaan doonta inaad fahantid inaad aamintid iyo inaad u naxariisatid waayo horaa lagugu soo ciyaaray haddaba waxyaabaha la bedeli kara bedel waxyaabaha aadan bedeli karin u daa dadka kale inay bedelaan qofka kaa soo horjeedo xitaa adiga haddii aaminaada kaa qaldan tahay naxariistu kaa qaldan yahay cafisku kaa qaldan yahay oo inaad dib iskaga shaqaysaa adiga oo aad barataa saad wax u cafi kartid saaxiibkaa shaahid biisaani haddii aad videogan ka heshay asxaabtaada la wadaag meel walba dunida ka joogta waxaan ku leeyahay allah kugu xifdiyo asalaamu calaykum